السلام عليكم صاحبتكم شو هذا برنامجكن هل دقة maanta waxaynu ka hadlaynaa Comoros ama Jazirul Qamar. Jazirul Qamar waa jasiirad dhacda badweynta Hindiya kuna taala dhamaadka waqooyiga kanaalka Mozambique ee xeebaha bariga Afrika. Wadamada u dhow ee xuduud jasiiradan leedahayna waa Mozambique, Madagascar iyo Seychelles. Bedkood waxaa lagu qiyaasay 1861 kilomitir square waxaana caasimad u ah Moroni waana magaalada ugu weyn dalkan. Tirada dadka waxaa lagu qiyaasay 869 oo qofood. Diinta ugu badan dadku haystaan waa diinta Islaamka. Luqadaha rasmiga waa luqadda Qamariga, Faransiiska iyo Carabiga. Comoros ama Jazirul Qamar waa dalka afraad ugu yar qaaradda Afrika. dalkan waa dalka ugu badan caalamka ee soo saara geedka loo yaqaano yilaan kaas oo ah geed loo isticmaalo daaw ahaan saliidiisana laga soo saaro catarka. Sanadii 1991 dalkan waxaa ka dhacay dabeyl aad u xooggan taas oo galaafatay nolosha dad gaaraya 500 oo qofood. Buurta Kartala waa buurta ugu dheer dalkan sidoo kale buurtan waa buur volkaaneed furan. Comoros ama Jazirul Qamar waxaa ku yaala ilaa 4 madaar ama airport. Dalkan wuxuu qaramada midowga ku biiray sanadii 1935. Dhaqaalaha dalkan wuxuu ku tiirsan yahay beerashada iyo kalluumaysiga. Xornimada waxay dalkan ka qaateen Faransiiska sanadii 1934. lacag dalkan waxaa lagu magacaabaa Comorian franc.